ahaada dada iska dhowd waxay dhigi doonaan cashirkan ka maqnaay inaan duubeen rabaa dhowdi so marka one more time aan rabaa inaan ku celiyo cashirkeena caawo wuxuu ku saabsan yahay steak wuxuu ku saabsan yahay I would like the steak waxaan jeclaa lahay hilibka jiirta ah lo'da ah please fadlan topics waxa waaye numbers 11 to 100 waxa laga hadlayo waa meals and meal time cuntooyinka iyo waqtiyada cuntooyinka menus oo ah fileka cuntooyinka ay ku qoran yihiin ayaa laga hadlayaa iyo ordering iyo qaabka loo dalbado objectives ujeedooyinka cashirka markii la dhameeyo waxaa la rabaa ujeedooyinka waxaa laga wadaa ardayga inuu awoodi karo cashirka markuu dhamaado muxuu samayn karaa ordering in a restaurant inaad cunto ka dalban kartid meesha cuntooyinka laga cuno restaurantiga ama maqaayada ayaa laga wadaa talking about food ina cuntooyinka things iyo cabitaanada telling time waqti ina sheegi ordering meal iyo ina cunto dalban kartid iyo garaamaha qaybtan ayaan ka wada hadli doonaa insha Allah wada sheekaysigana yarka ah waxaan rajeynayaa inaad sawir ka qaadatiin ordering in a restaurant inaad dalbatid wax ka dalbatid maqaayada waiter kabalyeeriga what will you like for dinner maanta maxaad u jeclaa lahayd casho ahaan I would like the steak please waxaan jeclahay steak fadlan waiterkii kabalyeeriga ayaa wuxuu leeyahay and for you sir adigana mudane Mr. Miller wuxuu leeyahay I would like the chicken with rice please fadlan waxaan jeclaa lahay digaaga iyo briiska doorada iyo briiska fadlan qofka sida u yaqaano waiter kabalyeeriga right away oo macnaheedu tahay immediately ama isla haddaba waa ku keenaa follow up questions kan waxaan rabaa inaad isku daydid haddii aad ka maqan tahay cashirka inaad ka jawaabtid ardayda way ka jawaabeen number 1 waa Mr. and Mrs. Miller are at cave Mr. iyo Mrs. Miller laba are at cave labadooda are waxay joogaan at cave-ka ayay joogaan meesha oo qaxwada iyo bunka laga cabo and Mr. Miller and will like Mrs. Miller will like a hamburger Mrs. Miller waxay jeclaa lahayd hamburger Mr. Miller will like the chicken with rice Mr. Miller wuxuu jeclaa lahay digaagada iyo briiska marka true oo run ah tea false oo been ah labadaas mid unbaad dooranaysaa adoo ku laabanaysa cashirka next waxaan ka hadlaynaa talking about food and drinks numbers telling time qaybta la xiriirto waa halkaas ayadana so food and drinks cuntooyinka iyo cabitaanada breakfast quraac lunch qado dinner casho so we have number 1 breakfast lunch dinner saddexdaas ina qabatida laga rabaa maalintii cunta topiga cunta laga hadlayo soo cuntooyinka waa breakfast oo quraac la cuno lunch qado oo la cuno dinner iyo casho intaas ay yihiin marka halkan waxa kaaga muuqdo what we have is I think mango juice we see a cake here we see here milk we see here I think a coffee here we see I think bread here we see something egg and something else which I don't know what we see here is a spoon a fork and spoon waa qaado waxa oo jeedid halkaas fork waa fargeeto and milk waa caano juice waa cabitaan I think coffee waa qaxwadi or tea ama shaah and I think we see a bread here roti and or a cake and ama cake af Soomaaliga waxa lagu dhahaa cake lagu dhahaa maayna dolce yeah exactly dolce yes very correct dolce so lunch adada waxaa haysanaa juice again I think this is a hamburger and a chips baradhada la jarjaray waaye we also see something another roti bread and a small I think salad there is salad there another vegetables which I don't know the name we see a cup we see a glass we see a knife and we see a spoon knife waa midi spoon waa qaado okay fork waa soo aragnay waa fargeeto dinnerkana meeshan waxaa taalo I think this is what we call wine qamro
inay meeshan u eg tahay. We see egg, ukunta. We see spaghetti ama pasta. We see chicken here and something else which I don't know. Maybe those guys oo idinka inaga mid ah hoteelada waaweynka taga aqoonsan kara halkan. Who can tell me if you see something here? So anyways, that is what we call breakfast, lunch, dinner. Okay. Number one, su-aasha markasto waiterka waxaa laga yaabaa hotel haddaad tagto inuu ku weydiiyo what will you like, maxaad jeclaan lahayd. Marka inaad dhahdaa laga rabo I would like toast and coffee please. Waxaan rabaa toostiga waxaa laga wadaa baashan meesha ku samaysan waxay ka samaysan tahay maqaan and coffee iyo qaxwo please fadlan. So adii maqaayad haddaad tagto cuntooyinka normalka aad dalbana waxaa ka mid ah as a Somali community, rice, spaghetti, meat, camel meat, camel milk, cow meat, goat meat. We also sometimes need, I think, ambulo. We need ambulo and sor, right? So you can say ambulo dadka kale ma karsadaan ma yaqaanaan, so they say a mix of rice and beans a loo yaqaanaa waa isku darka digirta iyo bariiska. Maybe you can say flour. In Kenya we say ugali. Waa soorta ugali hadda dictionary gashay waa cunto la yaqaano dictionary ku jirta. So if you come to Kenya or any other country, ugali meel kasta laga yaqaanaa. You can see soorta darta ugali. And maybe what else? Anjero is just anjero, nothing else. Wherever you go, you just tell them anjero. And we say bread, roti, chapati. Those marka foodka adi wadankaaga ka jirto un baa dalbanaya haddaa maqaayad tagto. Haddaad waxa aqoon dalbatid waxaa laga yaabaa dooli in lagu keeno. So waxaa leedahay I would like to have the foodka aad rabto markaas. I would like a hamburger wax la yaqaano waayo, but a hamburger if it is halal you must eat hamburger which have a beef, hilibka lo'da, maybe laga sameeyo fish. Laakiin hamburger dee lagu soo dhex geliyo ham waa doofaar, burgerna waa rootigi. Hamburger marka Soomaali waa lagu sameeyaa. Hamburgerkan waxaan gelinaa hilib halal ah. Okay, so ayaga waxaa laga yaabaa doofaar inay geliyaan, so you make sure hilib halal inuu yahay markaad dalbatid. What will you like for may I take your order? Qaab kale lagu weydii karo oo kabalyeeriga ku weydii karo waxay noqon kartaa may I take your order? Fadlan ma qaadi karaa dalabkaaga? May I take your order? Ma qaadi karaa dalabkaaga? Marka yes I would like a hamburger. Ha, waxaan jeclaan lahay hamburger. What will you like for dinner? Maxaad u jeclaan lahayd casho ahaan inaad u haysatid maanta u cuntid? I would like chicken please. Fadlan waxaan rabaa digaagad ama dooro fadlan. I hope qaabka hotelka hadduu waiterka kuu imaado statementiga oo isticmaalaya oo ah questionku ku weydii karo waxaa weeye what will you like, maxaad jeclaan lahayd. May I take your order? Miyaan qaadi karaa dalabkaaga? May I take your order? Ma qaadi karaa dalabkaaga? Okay, so qaabkaas ayuu ku weydii karaa. Waxaan rajeynaa if some may I take your order, what will you like, labadaasba laba ujeeday leeyihiin inuu dalab kaa qaado uuna rabaa. What will you like for dinner? Sidoo kalena waa isku ujeedo ayadana inuu dalab kaa qaado rabaa. Casho ahaan maxaa u haysanaysaa? Okay, so marka wixii aad rabtaa sheeganaysaa markaas aad qaadi rabtid. I would like chicken please. Fadlan waxaan rabaa digaagad ama dooro. Numbers inaad xisaabisid nambarada from laga soo bilaabo 11 to 100 ilaa 100. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 70,
80, 90, 99, 100. Okay. Nambarada waa muhiim waxay sababay nambar ku muhiim yihiin most of you qofkii bangi tagaa ogaa karo markii xisaab qoraysid waxa laga rabaa jeegooga inaad qortid nambarkii iyo tira nambar ahaan iyo tira ahaan saacadoo kale sheeg nambar ahaan taleefankaaga nambar ahaan da'daada nambar ahaan soo nambarada waa muhiim inaad baratid kasoo kow ardayda kaleeto oo jaamacadaha iyo meelahaas aadaya nambarada muhiim u sii yihiin so 11 waa 11 meesha ku qoran tahay inii sheegay 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 33 40 44 50 55 60 70 80 90 99 100 marka tiradaas waxaa laga rabaa inaad aqrin kartiin okay the next one is telling time inaad waqtiga sheegin kartid waxaa lagu leeyahay what's the time what time is it what's the time waa maxay waqtiga what time is it waqtigee ayay sheegaysaa so waxaa leedahay it is 9:15 it is 11:25 it is 1:45 it is 12 o'clock inta macnaha saacadda fiirinaysaa xilligay tahay sheegaysaa saacad most of you saacadiina waa taqaaniin so I want to spend a lot of time here focusing on language qaybta xoog la saarayo waxay noqonaysaa focusing inaad diiradda saarto on language luqadda marka qaybta la saarayo waxay noqonaysaa what will you like xoog la saaraya what will you like or may I take your order labada su'aal baa lagu inuu ku weydiiyo way noqon kartaa or he can also tell you what do you want to eat meelaha qaarkood what do you want to eat maxaa cuni rabtaa okay so what will you like haddii lagu dhahaa su'aalaha markasaanay noqon karaan tusaalayaal badan waa meeshan sida uga jeedid I would like a glass of orange juice I would like a glass of orange juice okay next he would like fish and chips she would like a glass of water we would like 2 small pizza they will like a salad. Number 1, I will like a glass of orange juice. waxaan jeclaan lahay glass cabitaanka liinta. Orange juice waa cabitaanka liinta ah. Glass cabitaanka liinta ah ayaan jeclaan lahay. He will like fish and chips. wuxuu jeclaan lahay kalluunka ama malayga and chips iyo baradhada jarjaran ee la shiilay jibsiga ah he will like waxay jeclaan lahayd a glass of water glass biyo ah glass waa dhahnaa anaka glass biyo ah ama koob biyo ah we will like 2 small pizzas waxaan jeclaan lahayn labo biisaha yaryarka ah laba xabo ayaan jeclaan lahayn oo biisaha yaryarka ah they will like waxay jeclaan lahaayeen asalad ansalaadada laga wadaa saladka markaad qoraysid waxay noqon kartaa abastrafkaasna way tegi kartaa I would like waxaa loo soo gaabi karaa I would like he would like she would like we would like they would like dhawaaqa waa iskuga mid markaad qoraysid ayaa saas usoo gaabin kartaa ayaa laga wadaa so marka waxaa ini siinayaa exercise waxaad assume garaysaa inaad maqaayad ku jirto waxaad ka jawaabtaa su'aasha ah 1 quraac ahaan maxaad u jeclaan lahayd inaad u haysato so what will you like for a breakfast maxaad u jeclaan lahayd quraac ahaan inaad u heshid what will you like for a lunch qada ahaan maxaad u jeclaan lahayd what will you like for dinner casho ahaan maxaad u jeclaan lahayd inaad haysatid so marka waxaa leedahay I would like wixii sheegaysaa 1 inaad cabitaanka jeceshaa sheegtid aad rabtid 2 inaad cuntada quraacda aad sheegtid aad cunaysid cabitaanka wuxuu noqon karaa kuwa kulul sida shaah oo kaleeto fahmino tea or coffee waxay noqon kartaa you can say I would like bread roti I would like anjera dhehaysaa don't worry about Soomaaliga anjera waaye Itoobiyaanka iyo annaka duubano anjera una lahaa waxaa dhihi kartaa I would like qadadoo kale waxaa dhihi kartaa I would like
salad, maybe rice, breeze. I would like camel meat. hilib geelka cuntadiisa rabaa. I would like milk. I would like marka waxaan rabaa cuntada aad jeceshahay xataa haddii aad aqoon group ku soo daro cunto hebel magaceeda maxaa lahaa marka muhiimadda waxaa waa inaad dhigi kartid I would like waxaas okay with something marka casho ahaan qada ahaan iyo quraac ahaan intaba waa soo sheegaysaa wixii aad jeclaa lahayd inaad cuntid okay that is group wax lagu soo dirayo ayadoo qoraal ahaanna maybe waan soo diri doonaa oo faahfaahsan codadka inaad soo duubtiin muhiim waaye waan soo duubin hala socdaan haddaa xishootid weligaa wax ma baranaysid the next one is would you like a cup of tea miyaad jeclaan lahayd koob shaah ah would you like a piece of cake miyaad jeclaan lahayd jab doolsha ah will you like marka waxaa laga rabaa will you like su'aal lagu weydiinayo waa marka oo su'aashana jawaabteedu waxay noqonaysaa yes or no okay haddii aad jeceshahay yes haddaad jecleen no so maybe qofa usoo martisay wuxuu ku dhahay guri markaa soo gashay will you like a glass of water and glass biyo ah ma rabtaa waa daalan tahay yes I will please have fadlan aa leedahay will you like a piece of cake jabkeyga ma rabtaa casriya soo xaafad xilli casriya ku soo aaday waxaa lagu dhihi karaa will you like a piece of cake and tea jeclaa lahayd shaah iyo jab rooti ah soomaalida ma jecla waxaas ma jecesha in la dhaho hore looga keenay rabaan bis no thank you maya waa mahadsan tahay will you like ma jeclaan lahayd marka su-aasha waxay noqonaysaa will you like markasta wixii markaas aad rabti inaad weydiisidaas dhehaysaa we will like some ice cream waxaan jeclaan lahayn xoogaa jalaato ah ice cream waa jalaato okay su-aasha kaleeto oo la isweydiin karo waxay noqonaysaa what kind of okay oo ah معن شاشة هاي توسكي ay tii hor ma arkayseen حوجا واحد جيس أنا غرسنا بي ay haddana وعلي سؤالي cashirka intaas bis waay wax kale maahan intaas un bis waay saas intaas bis أوكي هذا أوكي وات zoom دي هذا zoom in la dhaho waay because meesha qarsan wax ma ku jiraan ها يس اوكي أنا تمام هذا اوكي أوكي واتكن أوف وجد هذا أوكي okay very good and so the next one waxa waaye what will you like what kind of macnaha wax noocee ah what kind of waxyaabo badan loo isticmaali karaa cunto ahaan kaliya mu isticmaalaysid waxaa lagu dhihi karaa what kind of a person are you qof noocee ah ayaa tahay qofa macnaha kula yaabo waxa samaynaysid what kind of a person is this qofkan muxuu ah waa wax qof noocee ah marka what kind of wax noocee ah ayay noqotay macnaheeda so will you like apple pie no thanks miyaad jeclaan lahayd apple pie waxa waa bahal yaroo kuusanoo sidii rootigoo kale ah oo la sameeyo oo macnaha cunto ahaan ah ayaa apple pie la dhahaa marka hilib waxbaa ku jijiri karo marka apple keligiis hadaa fiirisid tufaax waaye marka apple pie waa cuntadaas nooceeda la dhaho marka wuxuu dhahay no thanks maya fadl mahadsanid what kind of pie will you like macnaha pie noocee ah ayaad jeclaan lahayd I would like chocolate cream pie waxaan jeclaan lahay pie-ga laga sameeyey chocolate creamka chocolate-ka laga sameeyey will you like some juice fadlan will you like some juice ma jeclaan lahayd xoogaa juice ah yes please ha fadlan what kind of juice juice noocee ah what kind of juice waa maxay juiceka noociisa will you like juiceka noociisa aad rabto waa maxay aad rabi lahayd what kind of juice will you like juice noocee ah ayaad jeclaan lahayd I would like some apple juice waxaan jeclaan lahay xoogaa juice cabitaan tufaax ah okay so insha Allah halkaas ayaan kasii wadi doonaa waxaan maleynaa inaan wax badan aqrinay questionska aad haysiin waa soo deyn kartiin dadka codadka soo duub waxaan dhahayn waxaa kamid ah groupkan kusoo dirayaa okay inaa quraacda qadada cashada waxaa jeceshahay
inaad ka jawaabtid su'aasha ah what will you like okay which food do you like cuntada jeceshahay and which food you don't like marka waxaan rabaa qof su'aalo qaba hadduu jiro ha ii sheego su'aalo qof qabo cashirka ku saabsan teacher kor u laabo hal mar haye halkan soomaan topiga maya teacher xoogaa kii haye halkan hoos u soco weli haye soco teacher meesha meeshaan oo su'aalaha ka bilaabanaya yani breakfastiga su'aalaha ku hoos yaala like I would like toast and cafe ma mid kale maxaa xoogaa fasirkeeda ay leedahay toastiga I would like toastiga ma aragtay waa cunto kun iyo wax ka samaysan actually waa research gareeyay macnaheeda ma aanan arkin laakiin waa cunto ayaka ay cunaan ma fahanti toastiga waa iska cunto leh wax kale ma cunto leh soo ma waa wax cunto ku saabsan waa rootiga lagu gubay brownka camal ah ma fahanti rootigan hadda guguban oo kaleeto kaas guguban ma aragtaa meesha ku yaalo oo guduudka laga dhigay dhinacyada guduudan taasay toast u yaqaanaan allah kaas kuwan toast loo yaqaanaa toast is a form of bread that has been browned by exposure to radiant heat toastigu waa nooc rootiga ka mid ah oo guduud laga dhigay ayadoo dab iyo holac lagu sii deynayo toastiga kaasay u yaqaanaan marka okay okay next question teacher lambaradu intan oo kaliya la xifdinaya nambarada intaan way ka badan yihiin nambarada intaan way ka badan yihiin marka intaan haddaad fahantid habeen cashirka xalay wax ku saabsanay waxaa laga soo bilaabay 1 ilaa 10 1 ilaa 10 tirada ku eg moogtahay 1 ilaa 10 haddii aad fahantid kuwa kaletana waa isku soo laalaabanayaan 11 12 13 way soo laalaabanayaan mujidido 1ki iyo 4ki 1 iyo 5 oo isku qabtay waay marka intaan haddaa fahantid oo si fiican u baratid tirooyinka kaletana waa akhri cashirka su'aalo badan aa jiro haddii uu go'o linki kale aa inii soo diraa si aad su'aalaha u dhammaystirno saas ula socdo okay teacher lambarada macal qoraalka ma lagu soo diraa marka la soo qoray buugga markas nambarada numbers from 1 to 10 qoro screenshot ka qaado qoro nambarada muhiim ay ku yihiin inaad taqaanid waaye marmar qaarkood da ahaan meel ku qora lagu leeyahay wax qor inaad fahmi kartid laga rabaa nambarka 17 18 19 in sida loo qoro 19 tira ahaan iyo nambar ahaan iyo erey ahaanba waa muhiim okay question kale teacher buugga asagoo dhan meel laga heli